السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa inoo wada barnaamijkii 6 qoraal iyo sheeko. inta aan barnaamijka u guda galin waxaa idin ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan, like-tana nagu dhiirigelisaan si barnaamijku uu gaaro dad badan. waana ku mahadsantiin sida wanaaga ku dhahan oo aad noola falgashaan. qoraalkeena koowaad waxa uu ku bilaabanayaa sida tan: gabar kasta markaa sawirkayga u diro baa la hadalkeeda iigu dambaysa RIP. boostigeena labaad waxa uu ku bilaabanayaa sida tan: farxi fiska ayaa waxay soo dhigtay boosti facebookgeeda, waxa ayna ku soo qortay sidaan: safar gaaban ayuu mubaarak October u baxay, macaan rabbi ha kusoo nabad celiyo. Addis Ababa ayuu dhakhtar u aaday. waa garanaysaan Soomaalidana midbaa screenshot intuu ka soo qaatay wuxuu ku soo horqoray mahmaah Nigeeriyaana ayaa waxa ay tiraahdaa: haddii dhagaha laga daboolo wanaaga iyo waanada dadka, indhahaaga ayaan ku ogolaan doonin inaad celiso ilinta dhibaatadu keentay. Professor Cawil waan ku raacay biiri fiiro gaar ah. qoraalkan iyo sawirkan shaqo iskuma lahan. boostigeena xiga waxa uu leeyahay sidaan: waxaa dumarka loo guursadaa qooqo ha ku daayo. walaalo anuu fikirka ka soo horjeedaa. dumarka waxaa loo guursadaa waruna maxaa loo guursadaa? commentiga noogu reeba. saddexdii qoraal halkaas ayay noogu egyihiin. haddana waxaa bilaabaynaa sheekadii. sheekadu waxay ku bilaabanaysaa sida tan: fircoon marar badan weydiimo uusan ka jawaabi karin kala kulmi jiray dadkii uu ilaahnimada u sheegtay, balse mar kasta oo arrini jiq ku noqoto waxaa furdaamin jiray Haamaan oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda, aadna u caqli badnaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa timid islaam waayeel ah oo rabta in fircoon uu u soo nooleeyo ri ka dhimatay, waayo fircoon waxa uu sheegtay in uu yahay ilaaha wax nooleeyo waxna dila. Haamaan oo aad u fahansanaa beenta fircoon iyo inuusan waxba abuuri karin ayaa waxa uu islaantii siiyey ri kale, isaga oo ku doodaya in uu fircoon hadda ku mashquulsan yahay abuurista geel. gabagabadii fircoon ayaa Haamaan weydiiyey maalintiisa, markaas ayuu u sheegay qisadii. waxa uuna yiri: islaan da ah ayaa ku raadinaysay, waxa ayna rabtay in ri dhimatay loo soo nooleeyo. fircoon aad ayuu u argagaxay, waxa uuna isdhahay maanta baa fashilmatay khalaas. Haamaan ayaa yiri: isdeji fircoon, waxaan siiyey ri kale, waxaana u sheegay in aad mashquul ku tahay abuurista geela. fircoon oo taahaya ayaa yiri: Haamaanow, haddaad ogaan lahayd sida ay u adag tahay in la abuuro geel. Haamaan waxa uu yiri orahdiisii caan baxday ee ahayd xitaa aniga. taasina waxay ahayd sheekadii dhextaalka noo ahaan jirtay. inta aanan bilaabin qoraaladeena kale waxaa idinka codsanaynaa si sharaf leh inaad janaalka subscribe noo saartaan, like-tana nagu dhiirigelisaan. mahadsanid. qoraalkan kale waxa uu leeyahay: hal qalbi oo 4 qalbi farxad geliya waxaa laga helaa qalbiyada ragga. qoraalkeena labaad waa qoraal aad u qosol badan. waxa uuna leeyahay: jacaylka maxaa ka taqaanaa bay igu dhahday, markaan ku iri ma ku tusaana waa ay icaysay. dabdaraad tusilayd gabadha islaameed. qoraalkeena u dambeeya waxa uu leeyahay sida tan: reer waqooyigu cilmi boodhari oo 1 qarni ka hor u waashay jacayl dartiis kadibna u dhintay. siday u sheegayeen ayay 100 hees iyo 100 gabay ka badan u sameeyeen. weliba ilaa hadda qabrigiisa baa la soo siyaartaa, la iskuna soo sawiraa. allah u naxariista reer koonfurkuna nin jacayl darti u waashay 30 sano ka hor ayay shalay oo Agosto 2022 soo heleen. aasay hadda timaha ka jirooyaan, dharkiina ka bedelooyaan. in loo heeso ama la siyaarto iska daaye. hadduu asbuucii hore dhiman lahaa dariskiisa maahay cid kale ma ogaateen. qax ilaahu adigaa ku mahadsan, anigoo qadaadweyn ah igu ridin jacayl aan la waasho. alxamdulilah. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen barnaamijkan. insha allah waana noo wadi doonaa keena facebookna inaad follow naga soo tiraahdaan, halkaas waa Faaruq. youtube-kana inaad subscribe noo saartaan. intaa boostiga dacwanaysaan inaad subscribe-ta dhacna ugu siisaan. waxweyn agtiina kama aha, balse annaka agteena qiimay ka leedahay. waana ku mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo aad noola socotid oo aadna noola falgashaan. mahadsanid.